daawadayaal sida aad arkaysaan maanta waxaan soo baqanay oo sidoo kale aan gudaha ugu jirnaa iskoolka Imaamu Shaafici oo kamid ah iskoolaadka ugu fiican magaalada Muqdisho. halkan waxaan rabaa in aan idinkaga soo gudbiyo sheeko aad u xiiso badan. arday iskoolkan wax ka barata oo iyagu hal abuurkooda uu gaarsiiyay in ay waxyaabo la yaab leh ay ka sameeyaan kombiyuutarro iyo shaybaarka dhinaca caafimaadka loo adeegsado ee lagu baaro cudurrada. haddaba arrintaas ayaa rabaa inaan idiin soo gudbiyo, waana sheeko aad u xiiso badan ee isla socod wanaagsan. waa arday aad u da'yar kuwaas oo ku dhiiraday in ay adeegsadaan maankooda si ay u sameeyaan computers, laptops iyo weliba shaybaarro. qalabkan oo ay ka sameeyeen kaartoono iyagoo mustaqbal ka rajaynaya in ay u bedelaan kuwa shaqaynaya oo dadku ay isticmaali karaan. Saadaq iyo Ismaaciil oo ay ku heliyaan saaxiibadooda iskuulka ayaa hadda ah kuwa sameeya qalabkan oo kaartoono ay ka sameeyeen ka gadaal markii iskuulka Imaamu Shaafici oo ay ka dhigtaan fasalkan form 1 lagu soo daray maadooyinka ay qaataan maadada tiknoolajiyada, taasi oo u sahashay in ay sameeyaan aaladahan. waa tahay daawadayaal sidaad arkaysaan waxaan imika la joogaa dhalinyaradii iyagu sameysay kombiyuutarada ka sameeyeen kaartoonada. haddaba waxaan rabaa mid ka mid ah injineerada mustaqbalka Saadaq inaan weydiiyo bal dareenkiisa sida ay u dhalatay in uu sameeyo computer laptop oo Apple ah oo uu markaasi u fakaro in uu kaartoon ka sameeyo. Saadaq haye. أيوة صادق ماذا حسن شركة من مشافيع عن يدرج لي عيال أصحاب تفصل كمبيوتر أصحاب تفصل كيدرج لين تكنولوجيا آخر وحكمية سلاح خيبوت أنه حسوسي والله توب أبلا كمبيوتر أبلا واتاي بلشة الصومال حكرت جنسا درج لين سيدكي أحمد خليف أحمد علي يوسف واتاي مرجينيسا كانوا كلنا soo saarto oo nooc kala oo shaqeynayo oo dadku isticmaalaan qalab fiican iyo dirgelin fiican daaylo soo saar insha Allah. maamulaha iskuulka Imaamu Shaafici Ustaad Cabdikariin Shuuriye ayaa ka warbixiyay maadada tiknoolajiyada oo ay soo kordhiyeen. بسم الله الحمد لله رب العالمين. ugu horeyntii waxaan u mahadcelinaa TV-gan soo booqday maanta Asal 24 oo waqtigooda qaaliga ah soo galiyay. intaa kadib ardada maanta soo bandhigtay barnaamijkan tiknoolajiyada ka sameeyay kartoonka maada nagu cusub oo iskoolka cusub waaye oo maxaa la yiraahdaa technology la yiraahdo. iskoolka hore wuxuu dhahan jiray laba maado oo laboratory sida physics-ka iyo chemistry-ga. marka insha Allah taala waxaan rajayn doonaa in barnaamijkan aan anagana waxay nagu dhiirigelinayaan ardadan in aan ka sameeyno lab oo sida kuwii hore ay lab u lahaayeen oo kale maadaama ay maadadu nagu cusub tahay. waxaan u rajaynaynaa insha Allah taala horumar inay barnaamijkan ay wadaan ay aad u sii horumariyaan. anagana insha Allah taala ka maamul ahaan waa dhiirigelinayna hadduu Ilaahay yiraahdo. aad iyo aad waa ku rajaynahay maadaama sanadkii ugu horeeyay ay qaateen maadadan ay tahay maxaa la yiraahdaa ayna sameeyeen isla sanadkan ayadoon la gaarin teeramkii qaybtiisa hore in ay practice u qaataan oo ay ka sameeyaan kartoon. waxaan rajaynayaa haddii sanad kale ku sii darsadaan ayna helaan wax dhiirigeliyo in ay barnaamijka intaan ka sii horumari karaan insha Allah taala. Saadaq iyo Ismaaciil iyo saaxiibadooda oo caawinayay iyaga oo form 1 ah dhigtana iskuulka Imaamu Shaafici ay ku dhiiradeen in ay sameeyaan oo ay ikhtiraacaan hal abuurkooda iyo fakarkooda iyagoo kaashanaya kombiyuutarro, laptop iyo desktop isugu jira shaybaarada lagu baaro waxyaabaha markaa xanuunada iyo cudurrada. haddaba waxa ay rajaynayaan haddii dhiirigelin ay ka helaan bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo ay markaas la garab qabto aqoontoodana kor ay u sii kacdo in ay soo saaraan qalabaadkan oo shaqaynaya maadaama ay macallimiintooda ay haatan ay garab istaagsan yihiin. Cabdullaahi Qadar Axmed Cusmaan, Asal 24 Muqdisho.